Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhawaada ayaa Nuura Cooking waa idin salaamay meel walba caalamka ka joogtaan waxaan sameynayaa labaniyad masa custard sidaad u taqaanid oo gurigaaga ku sameysanaysid xilligii aad rabtid oo ay ka qabato in aad sameysatid si fudud aan idin tusaaya insha Allah oo daasadna aad isticmaaleynin hadii ay ka dhamaato daasada oo aad daasad ka sameysata aad jeceshahay يعني sida u sameysan lahayd adigoonan wax kale u baahanin waatana waxaan ka sameeyay 4 xabo oo ukun ah ukunta qaybteeda dhaxda oo jaalada ah oo afarteeda 4 xabo ah iyo waxa ka sameysanaysaa 3 koob oo caano ah iyo koobka 3 loo qaybiyo hal qayb oo sokor ah iyo 4 qaado waranga ah iyo waxa ku dari kartaa ku carafsanaysaa heel ama vanilla tan waxa waaye vanilla imitation la dhahaa vanilla extract isku soo qaadanaha alcohol ku jira taas laakiin tan waxa waaye xalaal kuma jirto wax alcohol ah ka saa gadaasheeda akhriya waa ujeedina u maleynaya ingredient-igo dhan meesha ugu qoran yahay waa ujeedin waxa kale isticmaali kartaa vanilla powder isticmaali kartaa mise vanilla sugar ama waxa isticmaali kartaa heel sida adiga jeceshahay waaye marka waa kana qaybtii dhexda ku jirtay oo jaalada ahayd waaye ukunta qaybteeda jaalada ah 4 xabo aan hadda milayaa kadibna waxaan ku darayaa sokor aan ku darayaa adiga 1/3 mise koobkii 3 loo qaybiyay qaybtiis oo sokor intaas ka macaan jeceshahay adiga waaye ani intaas ka macaan ma jecli marka intaas ku darayaa si fiican isku milayaa sokortii iyo ukuntii shaharkeeda shahar ma la dhahaa qaybta dhexda ku jirto saasa u maleynaya waa kaasa waxaan ku darayaa warangadii 4 qaado ahayd mase warango mase corn starch sida u taqaanid oo tablespoon-ka oo afartiisa ah faante aan ku daray si fiican isku milaya hadda ilaa iskaga noqdaan cream ilaa iskaga noqdaan oo jeeda Soomaha marka hadda waxaan sameynayaa dabkan shidaaya waxaan ku shubayaa digsiga ama sufriyad sida adigu u taqaanid caana ku shubayaa caana waxaan ku shubayaa caanihi 3 koob ahaa aan ku shubayaa hadda waxaan rabaa inay xoogaa isoo kululaato kadibna waxaan ku darayaa heel aan soo tumay waaye xoogaa yar 4 xabo camal waaye aad inta rabtid ku darsan kartaa hadii heel aadan jecleen waa iska dhaafi kartaa vanilla ku darsan kartaa xoogaa kulleynaa ma karkarinayo caanaha ma fahamtay lama karkarinaayo qandac yar laga dhigayaa oo aadan karkarinin ma fahamtay waa kaasa marka hadda dabkan ka dejinayaa waa soo qaaday waxaan rabaa inaan yaani ukunta aanan ka naxinin oo aan shab hal mar ku wada siin xoogaa inaan ugu daraa rabaa hadii kale meeshan shakshuuka lama karinaayo ukunta subaxii la cuno camal ay ka noqonaysaa kuuskuus ay ka noqonay hal mar hadii aad qaadid caanaha kululaayo dhan aad ku wada dartid meesha qasaara ka dhaceyso ukun kala hala qaso camal ma fahamtay marka saan ma ku noqonayso xoogaa ugu dar tartiib degdeg waxa la door ma dhash Soomaa marka waa kaasa tartiib taas ugu dareysaa si fiican oo u mileysaa waa ujeeda sidaas u dhaxmari maxaa la dhahaa geedka doolshada lagu qaso ama wixii aad ku qasanaysid oo adiga markaas aad haysatid hadda diyaar waaye ukuntii iyo sokortii waraangadii la isku daray waxaan ku darayaa digsigii caanihii kale ay ku soo hareen yani waxa rab xoogaa le inaan soo kululeeyo ukunto isku faldiir ay noqdaan aan rabay hadda marka waan walaaqaya ujeedin kadibna waxaan ku celinayaa dabka si ay ukunta u korto kastarka u adkaado kastar u noqdo dabkan saaray waa karinayaa adiga dab oo dhaxdhaxaad oonan zaid ahayn hay ahaynin aan ku karinayaa kadibna ilaa 4 daqiiqo camal saasay ku noqonay intaas ka jilcan hadii adiga aad jeceshahay caanaha u badsan kartaa dhib malaha hadii aad jeceshahay saana ka dhigan kartaa adiga ku xiran tahay ma fahamtay waa ka saas ku soo baxay 4 minutes kadib saano ku soo baxay ujeedin alaabtaas qatarta oo freshka oo gurigaaga ku sameysatay waa carafta badan leh
oo kaala aragtaa macaanta badan leh ee kusoo baxday ee ujeedaa. Haddii aad rabtidna biyo biyo adiga kugu xiran tahay, haddii aad rabtid adeegna adiga kugu xiran tahay, ama haddii aad rabtid dhexdhexaad adiga jikadaada xukumo iyo weelka wax ku karsanaysid iyo reerkaaga siday jecel yihiin. Saasaa u dabooleysaa maxaa la dhahaa weel walba oo ugu talagashay adiga markaas dadka aad ku siin lahayd asaas ugu ridaysaa, u shushubeysaa hal markaasaad dabooleysaayoo si aysan kaaga yeelanin labeen filinjeerkaa gelinaysaa ilaa dhowr saacadood 3 saac camal si uu kugu qaboobo oo maasha Allah uu kugu noqdo. Waa ujeedaa bacdaasa isticmaalay, bacda jikada loogu talagalay wax in lagu daboosto. waa ujeedaa insha Allah marka wixii aad doontid oo adiga aad jeceshahay, cambo mase moos ayu qudaar adiga aad jeceshahay kor ka saaran kartaa, sokor yar daarta korka ugu bilbili kartaa, sidiisa ku cuni kartaa. marka dhamaantiin khayr aan idin rajeynayaa. soo dhawaada hadda cusubtiin subscribe gareey insha Allah, asxaabtiina kale la wadaaga haddii aad ka faa'iideen. aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. mac salaama.